eg dhalashada Sacuudiga qaybtii kalena waxay yiraahdeen anagu Yemeniyiintiyadan iska ahaanayna Allah faxane tuuladaas marka waxa ku dhex noolaa laba wiil oo walaalo ah oo la kala yiraahdo Abu Naafic iyo Abu Maajid labada wiil oo marka ayagu ahaa odayaal waaweyn 50 sano ku dhawaad ka hor waqtigaas ayaa aabahood la dilay iyagoo marka wiilal yar yar ah Abu Naafic Abu Maajid waxa uu ka weyn yahay hal sano waxana loo dilay aabahood aana qabiil oo markii dambe khalad noqotayba nin baa nin wax ka sameeyay oo u ciishaysnaa oo malaha nin kale ka soo dilay odaygii labadan wiil dhalay oo miskiina buu ku khalday ninkii uu dan lahaa markaasuu dilay wiilasha hooyadood aabahood way ka horeysay oo horay bay u dhimatay aabba la'aan bay soo istaageen kii wax dilayna xoogaa kadib ayuu ogaaday in uu khaldamay oo ninkaan uunan ahayn ninkii uu dan lahaa almuhim wiilashii waa koreen maadaama kaligoodba ay reerka ka hareen waxa la sugayay inta ay qaangaarayaan si ay u qorsheeyaan ninkan waxa ay ka sameyn lahaayeen wiilashii wiilal dhalinyaro ah bay noqdeen oo qaangaaray sheekadii markii looga dhacay way iska cafiyeen ninkii waxay dhaheen mar hadduunan aabaheen wax ka sameyn ama ninku xanaaq uu qabay uunan u dilin oo uu ku khaldamay aabaheenna uunan noo soo noqonayn maxaan ka faa'iideynaa dhan adduun cafis baad ka tahay baa la yiri dhan allana waa qafuurur rahiim ilaahay wiilashii waa la isu sheegay maasha Allah baa la yiri wiilashan maxay yihiin khayrka qaba oo waalid la'aanta xitaa haddana sida akhlaaqda la u tarbiyadaysan waa la sharfay wiilashii oo la karaameeyay oo qabiilkii waxa ay u guuriyeen wiilkii weynaayo ahaa Abu Naafic gabadh ay dhaleen reerka ugu sareeya qabiilka madaxda ka ahoo reer sharaf leh oo sharaf iyo karaaba lagu yaqaan reer noocaasana dee shaki kuma jiro gabadhoodu say noqonayso gabadh caqli iyo qurux iyo xikmad Allah isugu daray ba albaabka uga soo gashay Abu Naafic waxa uu noqday ganacsade oo sida badanaa dadka reer tuuloodka ama magaalooyinka xoga aan horumarsanayn degan ay u shaqaystaan oo ah inay beeraleeyihiin ama ay ari raacdaan intaba ma qaban karo yiraan horta hawlahaas waa ka dhex baxayaaba dukaan buu magaalada ka furtay uu ku gado alaabaha looga baahan yahay xaafadda sida maacuunka iyo wax lamida Abu Maajid oo ah yaraankii waxay noloshu iska socotaba maalinka dambe ayuu Abu Maajid waxa uu yimaaday Abu Naafic waxa uu yiri waalow gabar baan doonayaa xaaskaaga iigu dir gabar fariido sideedo kala soo hesho Abu Naafic waa u sheegay xaaskiisii waa isa sii daysay gabar bay soo dhifatay uu walaalkeed dhalay gabar quruxdeeda iyo sharafteeda aad ka baysid bayse u soo waday albaabka ka soo galisay nimca ilaahay iyo baraaray ku noolaadeen Abu Maajid shaqadiisu waxa ay ahayd waxa uu lahaa gaari baskan xunkaaya ee madaxa foosh xun leh ayuu wadan jiray waxa uu ku kaxayn jiray macallimiinta tuuladiisa degan tuulada waxa joogay gabdho mutacallimiin ah oo cilmigoodii cid kala gaarsiinaya maadaama ay dadka tuulada deganna ay badankoodu haystaan wax u eg jinsiyada Sacuudiga oo ay sida Sacuudiyaanka kale u noolaan karaan waxa ay gabdhahaas ka shaqeyn jireen magaalo indoor u jirta iskuul ku yaala maadaama meel buura ay degan yihiin raqraq iyo waqti dheer bay ka qaadan jirtay in ay tagaan meeshii ay ka shaqeyn jireen tuulada ugu dhow oo ay gaari ka raaci karaan waxa ay u jirtay taalla magalood markii ay shaqada maalinkaas dhameeyaanna waxa ay ku khasbanaan jireen in ay meel kale oo indoor u jirtay iskuulka ay ka soo raacaan gawaari nimankoodu ma kaxayn karaan oo maxaa yeelay aad ay u kala fogaayeen iskuulka iyo tuuladoodu kaliya waxa kaxayn karay qof ayaga u ingeerin oo tuulada ka qaada iskuulka geeya inta ay shaqada ka soo baxayaanna meesha ku suga markay soo baxaanna soo kaxeeya Abu Maajid marka muxuu sameeyay gaarigaas uu soo gatay wuxuu yiri ana xaabinaya macallimiintan kuna sugaya maalinkii oo dhan meesha inta ay shaqada dhameynayaan kadibna idin soo kaxaynaya xaasaskii macallimiinta oo dhan way ku farxeen oo dumarkaas kulli dumar reerale bay ahaayeen mid markii laga reebo maadaama Abu Maajid oday tuulada laga yaqaan uu ahaa oo sharaf leh kalsooni buuxda ayay siiyeen odayaashii macallimiinta halka ayuu hawshiisa ka bilaabay waxa uu macallimiinta ka qaadi jiray lacag ka badan inta ay ku raaci lahaayeen gaari kale ilaa asagu maalinkiisii oo dhan buu u beerdareeyo bartaas uu joogiyay magaalada uu iskuulku ku yaalo ku sugaya shaqo kale marka maadaama uunan qabanayn lacag roon oo reerkiisa ku dhaqi kara ayuu dalbaday lacagtaas uu ka qaado bishii ayuu reerkiisana ku biili jiray gaarigiisana ku biili jiray Abu Naafic iyo Abu Maajid caruurtii way u kortay Abu Naafic waxa uu joogay 5 gabdhood iyo wiilkiisu waa Naafic wiil caadiyana ma ahayn waxa uu ahaa wiil xanuunsan oo curyaannimo iyo maskaxda barmaqan ku dhashay Abu Maajidna cagsigiisa ayuu ahaa oo waxa uu joogay 5 wiil iyo 2 gabdhood wiilkiisa curadkana waxa la oran jiray Maajid Abu Maajid wiilkiisa Maajida labadiisa indhood uu ka jeclaa Maajid ma ahan afkiisa wax kale ka waayimaysi wuuna istaahilay oo dadka dhan way yaqaaneen wiil yar oo dhalinyaro ah oo akhlaaq iyo isluub leh oo baari ah buu noqday noloshii waa iska socotay in walbaba adduunkiisaas ku mashquulsanaa Abu Maajid dumarka uu qaadi jiray waxa kamid ahayd inan la yiraahdo Sacda waxay ahayd gabar afka ka falan gaariga inta la saaran yahay laga nasan maayo xanta cayda isla weynida waa ka qalan jibis intaas waxay ku darsatay inayna waji lahayn beeri fool xumay ahayd ilaahay wax fool xun ma abuurin laakiin bini aadanka wixii ishooda u roon u qurux yiri qofka adiga aad isdhahaysid
aragtid madaanyeerkay walaalayihiin qofba wuxuu leeyahay qofka kaliya ee dadka ku dhex jira qurux ma sha Allah laakiin qofka quruxdiisa saxda waxa lagu ogaadaa akhlaaqdiisa iyo la dhaqankiisa maca asaf dadku waxay isku raacsanaayeen in markii quruxda qurux u yaqaaneen la qaybinayay ay iyadu ka maqnayd waa maqnayd beedhay markii quruxda la qaybinayay sacda maalinkii dambe waa la soo doonay carabta caadooyinkoodana waxa kamid ah in markii aad gabadha soo doontid aadan arki karin magaceeda baa lagu sheegay waad soo doonaysaa waa lagu guurinayaa adoon wali arag meherkaad bixinaysaa adoon wali arag habeenkaad isu guri degtaan baa isugu kin horeynaysaa waa bakhtiyaa nasiib caadiya ku farax ama ku nax sacda wiilkii lagu daray markii uu albaabkii soo furay wadnihii baa dhaqaaqay waaba qashanahay buu yiri haddana gunnimo iyo ceeb bay ahayd inaad gabar ku soo celisid ima cajabin wajigeeda iska dulqaado isir bal quruxda qalbiga inay soo baxdo tan wajiga waa wax laga samri kara mise walaysa qurux qalbi iyo tu caqli toona jirin qof afka ka falan oo ummadda saqiir iyo kabiir aysan ka fakanayn macalinkeedii oo warkii ka batay qofku hadduu war badan yahay waa inuu war xikmad leh ku hadlayo male ayadu ummadda nabi maxamed bay ku mashquulaysaa intaana waxa ku dheer in ay gabigiisiiba wiilkii ka soo qaaday quraanjo aanan waxba ogeyn maadaama ay iyadu shahaado wadato asaguna uu alif la kordhabay bas bartay waxba ma kala ogid bay tiri wax walba waxay keentay inuu xisaabiso kalmad hadduu dhaw waxay keentay inay tiraahdo war heedhe maadoo jaahilaad waxay u qabsanaysaa waxba kala aqoon laba asbuuc maysan wada joogin markii uu gurigooda ku soo celiyay kabahaaga hay ilaawin buu yiri qumayahay bala ku degtay maxay ahayd war waa maxay baa la gabadha u soo celis war bala la tagtayda iga kaxeey buu yiri xaafadda markaa lagu soo celinayay sacda waa xaafad walaalkeed hooyadeed iyo aabaheed waa ka hormareen iyada iyo walaalkeed bas bay isu nool walaalkeed baa mas'uuliyadeeda hayay maalinkii albaabka ay soo garaacday oo ay ka furtay xaaskii walaalkeed naxdintay naxday waxay ka baqday inay sara jooga ka dhacdo maxaa ku soo celiyay bay tiri waxaas waa dhibsi ay u qabtay dhuuntay iyadana u gashay waa gabadha walaalkeed qabe farxadaydii ma dheeraan bay tiri ma laba asbuuc un bay ahay waa la soo furay bay tiri iga bay noloshu iska socotay wada noolaada iyagoo is dhibsanaya maalinkii dambe ayuu sacda walaalkeed shaqadii ka yimi gurigii uu soo galay walaashiis oo barooranaysa ugu yimi na maxaa ku helay wacad alla bay tiri walaalo ma sii joogi kara xaafadan islaantaadu dhuuntay ii gash noloshii oo dhan bay igu ceerisay way isaga tagayaa gurigaan ma joogi karo maya wiil see u tagtaa ma adoo gabadha